deynta dawladdii Soomaaliyeed ee marba jirtay iyo deynta qaadatay dawladdu way tagtaa laakiin waddanku meeshii uu yaalaa deyntii ugu horeysay waxaan qaadanay ruushkan ka qaadanay deyntii ugu horeysay 1962 ay ahayd tii ugu dambeysana 90kii intii inta u dhaxaysay wixii la qaadanayay yahayd ayaa ma garanaysa ayaa deyn inagu noqday deymahaasi waxa lagu falayay mashaariic waxa la yiraahdo inagu aan lahayn ama mashruuca sonkorta ha noqoto ama mashruucii dharka soo saarayay balcad ha noqoto ama wadooyinkeena ha noqoto ama biyo xidhanada ha noqoto mid waliba mashruuc bay ku salaysan tahay oo ku identify garaysan tahay deymaha meesha ugu quruxda badan ay ku baxday waxay ahaayeen beeraha mashruucii bambeelmada la dhihi jiray muuska waxay u badnaayeen wax soo saar ay u badnaayeen nasiib darro qaarkood waa fulin qaarkoodna ma aysan fulin waxaan filayaa imika haddii la isku gegeeyo kala badh inay tahay lacagtii hore la inaamaya kala badh kalena dulsaar yihiin lacagta markaad wax saahayso waxna waa dulsaaro faa'iidada weeyaan faa'iidada waxna waa penalty oo waad bixin weyday waxa ku soo saarmaya qaraamad baa ku saarmaya wixii oo dhan la isku geeyay ayaa markaa waxay noqdeen 5 bilyan iyo 300 milyan inaan iska bixinay noqotay inaan ma bixin kari weynay waa wada la maro weeyaan wadadana cid waliba iskama mari karto laana qof walba uu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafi maayo laakiin hab baa loo baahan yahay conditions baa loo baahan yahay shuruud in la fuliyo loo baahan yahay shuruudda ayaa waxaa soo dhan baa la isla gartay wadanada qaar baa dhibaato ku dhici way iska bixin kari waayay dhibaatada hadda iyagu keensadaan oo financial management uu khariban yahay si looga dhaafaa way adag tahay adaa dembiga galay weeye laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karin waddan islaayay oo kale sidii keen oo kale waddan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayay laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado waddanadu markay noocaas kale noqdaan adduunka isku wada xidhana waxa la leeyahay waddankaasi hadduu saas sii ahaado dad baa ku dhimanaya oo ku leeanaya waxa lala qabto waa adduunka isku imanaya marka arrinta deynta waa arrin aad u culus ahayd intii muddo dheerna way qaadatay dowladdii ka horreysay ayaa soo bilowday in heshiis la gasho hay-adaha caalamkaase yeeshee dowladdan 2017 marka ay soo istaagtay shayga ugu horreeya ishordhigtaba waxay ahayd markii la arkay deynta Soomaaliya lagu leeyahay inta ay dhan tahay culayskeeda in ay marka heshiisyadii caalamka aan la galnay sida ay yihiin in loo fuliyo IMF World Bank waxayna soo hordhigeen 84 shuruud sharti ah wax yar maahan 3 sano 4 sano 84 sharti ayay ahayd dowladda Soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo